الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كان امتحانها هاي أن كسو قادن جرني سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وإلهي أمري سبحانه وتعالى إن كضينا نبينا صلى الله عليه وسلم وقضينا أخلاق ونكسن إلهي وحي سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نبي محمد وحيد كوسوغان كضيشة ونكسن نبينا صلى الله عليه وسلم دروستي هذا السعوتي وحين كسو قادني habdhaqan kiisii ku saabsanaa sidii ula dhaqmi jiray zawjaadkiisii taahiraadka ahaa ee wanaagsanaa ee ummahaadka mu'miniinka ahaa iyo asbaabta keentay inuu Nabi Maxamed gurigiisa uu ka dhigo guri degan oo wanaagsan oo kalgacayl iyo isjacayl uu ku dheehan yahay taasna ay keentay dhaqankiisa wanaagsan sallallahu alayhi wasallam ee looga baahan yahay dadka mu'miniinta siiba raggu inay uga daydaan. Xalaqadan waxaan ku soo qaadanaynaa ama casharkan waxaan ku soo qaadanaynaa nabigu sallallahu alayhi wasallam bashar buu ahaa, xaasaskiisa uu la baashaali jiray, uu la kaftami jiray, uu u sheekayn jiray, ma ahayn isaga oo weliba aan ognahay hawlaha faraha badan ee islaamka ama dacwada ha ahaato ama jihaadka ha ahaato ama maamulka ha ahaato arrimahaas oo dhan isagoo ku mashquulsan ayuu haddana gurigiisa wuxuu siin jiray waqtigiisa qayb ka mid ah. Maanta dumarka qaybo badan oo ka mid ah waxa ay ka sheeganayaan siiba social media waxaan markii yimaadeen in raggooda ay waqti u helin ama ninkii wuxuu iska fadhiyaa meelo maaragtay fadhi ku dirira ama ma joogo hadduu guriga yimaadana waxa laga yaabaa in uu aaladaas uu ku mashquulsan yahay. Waxyaalaha loo baahan yahay ee wanaagsan waxa kamid ah inay zawjka iyo zawjadiisu ninka iyo xaaskiisu inay sheekaystaan, inay kaftamaan, inay isla baashaalaan maaragtay. Nabiguna sallallahu alayhi wasallam uu samayn jiray waxyaalaha kana qayb qaata kalgacaylka xog waranka ayay kamid tahay maaragtay si uusan gurigu u noqon xabsi uusan u noqon. Nabigu sallallahu alayhi wasallam xaasas badan buu lahaa oo Ilaahay u baneeyay sallallahu alayhi wasallam min duuni almu'miniin ragga mu'miniinta afar ka badan ma guursan karaan laakiin Nabigu sallallahu alayhi wasallam mar buu sagaal uu hal mar u wada qabay oo asbaabahaasna siirada lagu sheegay dacwo ahaan iyo soo dhaweysasho ahaan dadka Ilaahay waxyaalo xikan badan buu ka lahaa Nabigu sallallahu alayhi wasallam waliba markuu guursaday xaasaska badan ma ahan intuu yaraayo nin dhalinyaro shahwo badan leh uu ahaa markii isagoo nin weyn oo lixdameeyadii ku dhow buu guursaday sababana waxa ay dacwada ayuu isticmaali jiray si uu ugu soo dhaweeyo dumarkaas dadka uu la xidhiidhay uu soo dhaweeyay sallallahu alayhi wasallam. Almuhim Nabigu wuxuu samayn jiray sallallahu alayhi wasallam xaasaskiisa habeen walba mid buu u tagi jiray laakiin gelinka hore iyo gelinka dambe dhammaantood uu soo wada mari jiray uu salaami jiray waa la kaftami jiray. Xadiis Tabarani iyo qayrkiisa ay soo saareen ayuu Ibn Abbas waxa uu leeyahay kaana sallallahu alayhi wasallam ida salla subha jalasa fi musalla meeshuu fariisan jiray wa jalasa naasu hawlahu hatta tadlu'a ash-shamsu dadku muxaadarin jiray thumma dakhala ala nisaa'ihi imra'atan haweenkiisu mid ugu gali jiray isagoo salaamay yusallimu alayhinna wa yad'u lahunna isagoo salaamay u ducaynaya fa idha kana yawm ihdahunna jalasa 'indaha mid walba uu galaya uu ducaynaya akhbaarteeda weydiinaya laakiin midii maalintaas lahayd ama habeenkaas lahayd ayuu hooyanaya. Saasoo kale galabkiina saasuu samayn jiray sallallahu alayhi wasallam galabka kaana sallallahu alayhi xadiidkan dambe waxa wariyay maaragtay Bukhari iyo qayrkiis ida kaana rasuulullah idan sarafa min al-'asr markuu galabka ka gadoomo Nabigu sallallahu alayhi wasallam dakhala ala nisaa'i fayadnu min ihdahunna wuu u soo dhawaan jiray isagoo oo dhunkanaya isagoo la baash maaragtay laakiin habeenkaas midii lahayd ayuu habeenka la bari jiray sallallahu alayhi wasallam. Imam Hafiz ibn Hajar xadiidka markuu Fathul Baariga sharxaya wuxuu yiri Nabigu sallallahu alayhi wasallam awwal nahaar uu salaami jiray uu ducayn jiray aakhirkana intuu la fariisto kaana yajlisu wa yasta'nisu wa yuhadithuhunna buu yiri muhadatha iyo u sheekayn jiray maaragtay saysan cidlo u dareemin maaragtay. Nabigu sallallahu alayhi wasallam xaasaskiisa uu la qosli jiray uu la kaftami jiray sallallahu alayhi wasallam. Aisha waxay leedahay radiyallahu anha qaswat Tabuk markii laga soo noqday baa waxa ka dhumay ciqdi baa ka dhumay meel jeeshkuna iyo ciidanku ciqdi waxa ay kuul ama silsilad biyo lama haysan dadkii baa Abu Bakar u sheegtay waxa fiir gabadhaad waxa nasay meel cidla ama degno aan biyo la haysan Abu Bakar baa yimid bay tir nabiga oo ku jiifa bowdadeyda markaasuu ila aabaheed weeyo uu canaantay wixii meel cidla jeeshkii adejisay adii daraada halkan loo degay maaragtay markaasuu nabigu ka celiyay sallallahu alayhi wasallam
nebigu intuu ka celiyo la kaftama caaisha wuxuu ku yiri markuu uu ka tegey ayuu wuxuu ku yiri ma aragtay sidaan kaaga celiya aabbaha ninkii sidaan kaaga celiyay ma aragtay buu yiri kadibna aayaddii waxaa soo degtay aayatu tayammum ayaa soo degtay saasoo kale nebigu sallallahu alayhi wasallam intuu soo galay caaisho iyo laga yimid ma aragtay qaswo laga yimid ayuu wuxuu arkay iyadoo haysata gabar yar bay ahayd waxyaale ay ku cayaaraysay waxa ku jiray marka faras laba leh ma aragtay garba leh markaasuu ma hada markaasay tiri waa faras garba leh oo faras garba leh miyaa jira buu yiri ma aragtay markaasay tiri ma aragtay miyaadan maqal bay tiri nebi Suleymaan in uu lahaa ma aragtay faras janaxyo leh janaxaan leh laba ma aragtay garabo ku duula leh markaasay waxay tiri nebigu wuu qoslay bay tiri xataa badat nawaajiduhu ilaa aan ka arkay ma aragtay gowsihiisa qosolka uu qosay uu ku qos uu la qosli jiray uu la baashaali jiray uu u sheekayn jiray nebigu sallallahu alayhi wasallam caaisha intuu la fariisto iyo kuwa kale buu u sheekayn jiray maalin waxaa jirtay uga sheekeeyey qisa caan oo Bukhari qaybkiisa ay wariyeen oo la yiraahdo xadiis Ummu Zarc xadiis dheer oo xikam badan iyo duruus badan ay ku jiraan Ummu Zarc qof la dhaha waxay ka sheekeynaysaa dumar badan ayuu nebigu uga sheekeeyey oo mid walba sidii ninkeedu ula dhaqmi jiray marka Ummu Zarc si wanaagsan buu ninkeedii Abu Zarc ula dhaqmay oo u hagaajiyey oo u maaragtay u maamusay markaasuu nebigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam anigu Caaisha sida Abu Zarc Ummu Zarc u ahayo kala aan ku ahayn marka waxaan ula jeedaa halka kan casharkan ka qaadanayno walaalayaal si guryaheenu ay noqdaan guryo wanaagsan xaasaskeena aynu tusno waji wanaagsan aan la sheekaysano aan kalgacaylka guryuhu ilmaha tarbiyadoodana hadhow wuxuu ku lahaanayaa qayb buu ku lahaanayaa ilmaha markay arkaan hadhow dhaqanka ay waalidkood ka arkaan ayay iyaguna hadhow ku dhaqmi doonaan hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa inoo xalaqa dambe ama casharka kan ku xiga oo aanu sii wadi doono habdhaqankii nabigeena sallallahu alayhi wasallam iyo sidii uu la dhaqmi jiray xaasaskiisa sallallahu alayhi wasallam ورضي الله عنهن هذا والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته